بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله walaalayaal halkani waa magaaladii Najraan la oran jiray oo quruumeed qarniyadii dhexe ayaa la deganaa magaalada dhulkan beerahan timirta waa kuwana beera timira magaaladoo dhami waa beeraha timirta waa kaasa walaalayaal waa Najraantii hore oo quruumadii dabcan waqtiga risaalada ilaa yawmana hada baa la degan yahay oo cimaaradaha laga dhistay beerihii weeye soo ma aragtaani walaalayaal waa taasa naqalkii tamarta waa kaasa waa magaaladii Najraan la oran jiray walaalayaal marka ku soo dhawaada waa tan walaalayaal magaalada qayb ka mid aan inii duubaya waa qaybtaan waa qaybtii aan lagaga soo baxayay magarad meesha caqabadan ayaa laga baxaa buurtaan dhexdeeda caqaba abaa sacuud baa la yiraahdaa abaa sacuud ayaa la yiraahdaa magarad marka intaa yar baan inii duubay markaan meeshii ka soo baxay aataartii marka ku soo dhawaada walaalayaal dabcan halkan baabuurta waaweyn waa ka mamnuuc baabuurta waaweyn waa ka mamnuuc caqabadan aad ayay u dheer tahay balse hadda anigu faadi baan ahay gaarigu ma rarna إن شاء الله تعالى واقف حياة لكن واميل ديرو عقبات بورتاس لك لا جاي بابور تيرير با مرتئيو بابور ويتت يعني بويد بيها meelahan u kala dhaamiya ayaa marka caqabadii gaarigii waa quwad jabay la ilaaha illa allah walaalayaal inta yar mandarka yar baan rabay in la wadaago oo caqabada waan ka soo baxay caqabadii alxamdulillah dheereed laakiin lissa aad ayay u sii fog tahay oo wata xagga hore bal sii maraya waa dheer tahay marka tii ugu dheerayd baa ka soo baxay kuwaanina waa kuwa kale oo ilaahay baa kuu sama ogole buurtii wey waa Najraan halkani meeshani Najraan waa meel cajiiba baan ku yidhi oo kiristiyaankii masiixigii hadduu ilaahay waa kuu rooyahay yahuudii islaamkii qolo walba waa ay soo mareen oo diimahaas ayay qaateen ahlul kitaab bay ahaayeen ma garateen marka walaalayaal waa meel mucjiso ah walbuuraha kale waa mucjiso halkaa hoosaa loogu dhaadhacaa waadigaa biyuhu iska marayaan weeye beeraha iyo nicmada ilaahay ku dhukaday subxaana allah laa xawla walaa quwata illa billah weli buurihii baan dhex marayaa maaha meeshani meel buurahaani laga dhammaanayo maaha ma garateen waa dariiqan abaa sacuud baa la yidhaahdaa soo ma idinaan garan marka walaalayaal waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawaada ilaa iyo hadduu ilaahadma markaan gaaro bi'r alcaskar intaasaan maqbacaan ku joojinaya hadduu alla idmo markaan bi'r alcaskar aan gaaro hadduu ilaahay idmo waa meel hadda xoogaa 10 kilomitir ii jirta marka walaalayaal adduuniya dhulkeenna dhul baa ilaahay ina siiyey dhul beereed dhul xoolaad hadduu ilaahay waa dhul geeda leh dhul akhdara war bal halkaa indhaha war meel innaba haba u yaraatee waxa isha naxariis ugu jirto ma ku aragtaanin waa shiila madow waa kaasaa dhulkan
dad baa ilaahay ku abuuray oo deggan oo iska leh oo sidaa u samaystay oo muftakhir ku ah yaa weliba muftakhir bay ku yihiin innagoo dhulkeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax walba uu ku mannaystay biyihii oo soconaya hadduu ilaahay waa kuu roon yahay beerihii mawaashigii xoolihii oo saddexdii nicmoolayda ahaydba allaahu akbar baynu dhulkeennii iyo dadkeennii nabad u diidnay war qofkii alliya rasuulkiisa rumeeyey oo madaxda soomaalida war ninkii madaxnimo ka rajo qaba inuu dalkaan iyo dadkaan madax u noqdo ama kuwiinna hadda u ahi war ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqa oo ilmihiinna iyo ilmahay dhaleen war wax uga taga war ammaanada ilaahay inii dhiibay ka soo baxa war ilaahay diintiisa dadka ku dhaqa war ilaahay diintiisa dadka ku dhaqa kitaabka alle iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam war shareecadda islaamka dadka ku dhaqa ilaahay dhibka waa uu naga saaraya haddaynu ilaahay u noqonno shareecadda islaamka aynu qaadanno haddaynu shareecadda islaamka iyo kitaabkeennii u noqonno dhibkan waa ka baxaynaa laakiin waxaan inii sheegayaa walaalayaal waayeel iyo dhallinyaro culimmo iyo caamaba miyi iyo magaalaba nin wax bartay iyo nimaan wax baranba qof kasta oo soomaaliya ama luqadda soomaaliga ku hadla dadkeennu luqadda soomaaliga ku hadla ma ahane waa soomaali baynu nahay kelmaddaas dadka adeegsada nimanka wariyaasha abaa adeegsada marka raalli ahaada af soomaaliga inta ku hadashaa waa soomaali weeye ma garatay soomaali weeye ama jabuuti ha joogo ama etoobiya ama NFD ama waqooyi galbeed ama koonfur soomaali baynu nahay marka war kitaabka alle iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam u noqda shareecadda alle dadka iyo diinta dadka iyo dalka ku dhaqa ilaahay dhibkan waa naga saarayaa allah subxaanahu wa tacaala dhibka waa naga saarayaa marka walaalayaal nin kasta oo doonaya inuu waddankan madax u noqdo ama hadda madax ka ah war ogow ammaanadan waa lagu weydiinayaa war madaxnimada waad jeceshihiin laakiin ma ogidin mas-uuliyaddan iyo waxa ka dambeeya allah baan ku dhaartee yaa maalinkan maantaya haddii soomaali oo dhammi isu timaadoo yidhi ay dhahaan war kaalay waddankan madax ka noqo ama wasaaraddan madax ka noqo allah baan ku dhaartay inaanan ka noqdeen baan ku ma garad madaxnimo anigu mas-uuliyad intii ilaahay ii dhiibay ilaahay ha igu nabadgeliyo subxaanahu wa tacaala yaa reerkayga ilmahayga iyo ciyaalkayga iyo hooyadood yaa intaa ilaahay ii dhiibay oo masaakiinta ah ilaahay mas-uuliyadda mid ka soo baxa allah iga yeelo kaas intii baaman waaba dayacayba marka war ma dal iyo dad baan anigu mas-uuliyaddooda qaadi karaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun war ninkii ilaahay u qoray oo mas-uuliyaddaa qabto oo doonaya inuu qabto waa kii alla u qoray mid waliba qaban mayo war dalkan ilaahay uga baqiya dadkan war cadaalad baa lagu faray war cadaalad baa lagaa rabaa ummadda shacabka hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo ilmaha yaryar iyo culimmada yaa mas-uuliyad baad u qaadeen war mas-uuliyadda ilaahay mas-uuliyaddaas aad qaadeen war mas-uuliyaddaa ka soo baxa war dhulkeennii waa dhul barwaaqo weeye war dhulkeennii waa dhul barwaaqo war dadku waxay ku nool yihiin ama ay haystaan waa dhul aan dhulbeereed ahayn oo aan dhul biyood ahayn oo dhul xoolaad ahayn oo indhahaba aanay naxariisu u lahaynba ma garateen laakiin dhulkeennu maasha allah tabaaraka allah walaalayaal marka aad baan inii salaamayaa dhammaan soomaalideennu meel kasta oo aad joogtaan orobo ameerika jasiiratulcarab dawla alkhaliij masar suudaan etoobiya
dalkeennii hooyo inta joogta dhammaantiin waan idin salaamayaa bishii gumaysiga aynu xornimada ka qaadannay ayaa ina ku soo fool leh oo maalin baa ka dhiman ilaahay haynoo ka yeelo dalkeenna iyo dadkeenna kuwa nabadgelyo iyo xornimo ku nool ilaahay haynoo ka yeelo walaalayaal marka waa idin salaamayaa aad baan idin salaamayaa walaale assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته وكان ونقطة تفتيش بير عسكر باللي هذا الكان